بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan bilaabaynaa akhrinta cashir yar oo kooban oo halkan inoogu yaala cashirkaas oo aan akhrinayno muddo insha allah haddii la yidhaaho si aan u fahamno waa in yar oo gaaban short conversation between doctor and patient waa wada sheekaysi gaaban oo u dhexeeya dhakhtar iyo qof bukaana marka sidaanu ku bilaabanayaa good afternoon doctor dhakhtar galab wanaagsan good afternoon to patient galab wanaagsan bukaan sidoo kale today maanta I visited waxaan soo booqday your hospital isbitaalkaaga ayaan soo booqday welcome kusoo dhawow this hospital isbitaalka what do you suffering maxaad la dhibaataysan tahay what do you suffering from maxaad la dhibaataysan tahay ama ku dhibaya ama sababta aad usoo booqatay maxay tahay I'm suffering with headache and joint pain waxaan la dhibaataysnahay I am anigu suffering waxaan la dhibaataysnahay headache madax xanuun and joint pain iyo xubna xanuun dhakhtarkii wuxuu dhahay for how long have you been suffering this pain xanuunkan muddo intee dhan ayaad la xanuunsanaysay wuxuu dhahay marka bukaankii waa ka jawaabtiisii for the last 3 months 3 bilood ee u dambeysay ayaan la xanuunsanayay dhakhtarkii wuxuu dhahay have you met any doctor before hadda inta ka horeysa have you met miyaad tahay mid la kulmay any doctor before hadda ka hor inta xanuunkan aad dareemaysay weli dhakhtar kale ma la kulantay no mayu dhahay patient I have not met any doctor wax dhakhtara oo aan la kulmay ma laha is there any medicine you have taken before is there any medicine that you have taken before wax daawo ah oo aad qaadatay hadda ka hor ma jirtaa I used herbal medicine as a remedies I used herbal medicine as a remedies waxaan isticmaalahayay daawo dhaqameed ama herbal medicine as a remedy si xanuun baabiye ahaana ayaanu isticmaalayay daawadaasaan isticmaalay I will send you waan ku dirayaa to the laboratoryga ama meesha baarka ku dirayaa to make si loo sameeyo a test for all your body jirkaaga dhan iyo dhacamadaas si loogu sameeyo baaritaan waxaan kuu dirayaa lab technicianka thank you brother waa mahadsan tahay we will assist you in our level we anagu will assist you waxaan nahay kuwa ku caawinaya in our level waxaan ku caawinaynaa inta ay awooddaanadu tahay thank you halkaas ayaan ku daysanaynaa cashir kale ayaa halkan inooga bilaabin doona isagana bas marka waxaan ku celinaynaa mar labaad good afternoon doctor good afternoon to patient today I visited your hospital welcome to this hospital what are you suffering from today I am suffering with headache and joint pain for how long have you been suffering pain for this pain for how long have you been suffering this pain for last 3 months have you met any doctor before no I have not met any doctor before no I have not met any doctor is there any medicine you have taken before I used herbal medicine as a remedies I will send you to the lab to make a test for all of your body. Thank you, brother.
we will assist you in our level. halkaas ayuu ku daynaynaa. waxaan ku celinaynaa mar labaad. good afternoon galab wanaagsan. good afternoon to galab wanaagsan sidoo kale. today I visited waxaan soo booqday your hospital isbitaalkaaga. welcome ayuu dhahay dhakhtarkii to this hospital isbitaalkan haatan welcome to this hospital kusoo dhow isbitaalkan. what are you suffering from waxaad la dhibaataysan tahay. I am anigu suffering waxaan la dhibaataysanahay with headache and joint pain madax xanuun iyo xubno xanuun zaa'ida. for how long have you been suffering this pain xanuunkan meeqaad la dhibaataysanayd. for the last 3 months saddexdii bilood ee u dambeysay aan la dhibaataysnaa. have you met any doctor wax dhakhtara ma la kulantay. no I have not met any not met badly. I have not met any doctor. waan garanay. I have not met any doctor. is there any medicine you have taken before wax daawo ah oo aad qaadatay hadda ka hor ma jirtaa. I used herbal medicine as a remedies waxaan isticmaali jiray daawo dhaqameed sida xanuun baabiyaha camal aan u isticmaali jiray. I will send you to the lab to make a test for all your body waxaan kuu diri shaybaadhka si jidhkaaga dhan loogu sameeyo baadhitaan. thank you aad ayaad u mahadsan tahay brother. we will assist you in our level. thank you.